Asalaamu calaykum axbaabi kusoo dhawaada mar kale muuqaal cusub. Muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sidii aad ku isticmaali lahayd ChatGPT adoo weliba jooga dalka Soomaaliya. Ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato kanaalkeena, fadlan subscribe saar, like-tana ka hilmaamin. Si aad u isticmaasho ChatGPT waxaad u baahan tahay laba app. Applicationka koowaad waa Turbo VPN. Applicationka labaad waa 2NR, linkigiisa description-ka ayaan idiin soo dhigi doonaa. Markaad la soo degto process yar oo rabaa kadib si caadi aad u isticmaali kartaa ChatGPT. Waxaan soo degayaa aan install gareysanayna. Markaad degsato marka waan habeenaynaa. Qaybtaas koowaad waxaad ku qoraysaa magacaaga aad ku qoraysaa qaybtaas koowaad. Anaga aad bilaabay askiga qorana. waxaas maalmaha aad isticmaalaysa iska dooranaysaa. Qaybtaas kalena muhiim waa aydan inaad buuxiso. Waa captcha waxa lagu magacaabo. Waa muhiim inaad buuxiso. Meeshaas aydan tick saaraysaa kadib save aad dhahanaysaa. Kadib wuxuu ku siinaa nambarkaagi. Nambarkaaga waa kan hoose meeshaas lixda ay ku qoran tahay waa nambarkaagi. Marka qaybtaas message kaaga soo dhacayo oo messages ay ku qoran tahay waa qaybta ay message-yada ku soo dhacayaan. Hadda waa noo faaruq wax ma yaalaan. Marka nambarkaagana waxaad ka heli doontaa qaybtaas oo aad ka heli doontaa oo nambarku kugu qoran yahay. Meeshaas iskiga soo qoran doontaa copy aan ka soo dhahan doontaa. Wixii intaas ka dambeeya waa ka soo bixi doontaa. Waxaad shidan doontaa Turbo VPN-ka. Turbo VPN-ka sidoo kale waxaad ka dooranaysaa dalka USA. Waa inta ugu badan ma soo qabto United Kingdom iyo in badan ma soo qabto. Laakiin in badan wuxuu ku shaqeeyaa oo si caadi ah kugu shaqeyn doonaa USA. Marka waxaan soo furanaynaa ChatGPT ga soo furanaynaa. Markaad soo furato kadib qaybtan oo kugu keen doonaa sana baad dhahan doontaa. kadib Gmail-kaaga aad ku xiran doontaa. Continue with your Gmail aad leedahay. Gmail-kaaga meesha ka soo dooran doontaa. sidaas aad ku habaysan doontaa. Kadib wuxuu keen doonaa qaybtan magacaada ku qoran leeyahay. Magaca qaybta ceblaawe iyo askiga qoran doonaa iyara. Waa yaraaniye. kadib qaybtan oo ku keen doonaa. Qaybtan marka waa qaybtii noogala baahnaa nambarka. Nambarka marka waxaad sameynaysaa waxaad halkan ka raadinaysaa wadanka Poland. Poland aad halkan ka raadinaysaa. Aniga Soomaaliya way ku jirtaa laakiin Soomaaliya is not available ku soo leeyahay. Marka halkan waxaad ka raadinaysaa Poland. meeshaas baasti ku leedahay. kadib koodkii wuxuu kugu soo diri doonaa application-kii aad soo samaysatay. waa tageynaa koodka wuxuu nooga soo diri doonaa halkaas messages ay ku qoran tahay oo noo soo dhacay. Marka meesha koodka ka soo qoran doontaa. kadibna halkan ku qori doontaa koodkii aad heshay. wixii intaas ka dambeeya si caadi aad u isticmaali kartaa. waxaad doontaad ku qoran kartaa, waxaad doontaad weydiin doontaa. Tusaale hadda aniga waxaa weydiiyey ii qor mowduuc ku saabsan dalka Soomaaliya. Bal arag mowduuca quruxda badan oo uu diyaariyey weliba 1 daqiiqo gudaheed. waad ku mahadsantahay daawashadaada. fadlan haddaad ku cusub tahay subscribe saar. mahadsanid.